ugu waxa wiilkee walaalkeed ah oo ka yar ama ka weyn baa loo guurinaya markaas carruurtu ka taga loo biilaya ninka Soomaaliga ah qiimaha uu leeyahay ajnabiga meelaha kale laga buuxinay ilmuhu la haya ilmaha islaamaha ilmaha 7 cirbadood lagu dhufto minka laga soo tuuray yaana yani indhasracaad idinku ridin ninka Soomaaliga Abu Zaki waxyaabaha uu ka hayo gabdhaha Soomaaliyeed cid ka haysaa male xajku ya abeedi hooyadii Zaki xajku ya abeedi hooyadii nin Soomaaliya lagu arkay nin ajnabi ma samayn karo waxa ما سمعت أنت تبع عرورة كوها يسمحي شقتك تا أديك عروت حتى أديه ليد أنيك وحن هينا يا ويجي سدح بري أديك أنا أفر بريس وش قا يسويين اللي لا بدي نبيك هذه وحير نقوي ميا لقى زكي وليش قلت لك أباها صومالية is downgraded قبلها هني وحا يكديجان بوزيشن كوتاجية مدلي تكديجان لكن أدوك كلام تدرجوا يصير بيقدم بيان أدوك كلام إذا لا يابنه kuwa wax qaxiyo waa iyaga kuwa ilmaha Soomaaliya baabiinaya waa iyaga kuwa caruurta war heede anu hadaan nin Soomaaliyeed ahaan lahaa waa isqarin lahaa haye bal okay xanafta aan ka yara saarno I think meel yaro kulul bay naga yaraa meel yaro bal naga bedel subject waxaan weydiinayaa waa ku raacsanahay waxaan u malaynayaa inay jirto ma garanaysaa ragga Soomaaliyeed marka hore wadan waxay yimaadeen ajnabiga ama wadan qalaadeed marka hore siyaabooyin fara badan ayaa ku iman karta markaan reality-ga ka hadlayno weeye iyaro golow waana fahmi karnaa ragga Soomaaliyeed marka hore meel ay degnaayeen ma joogaan marka labaad waxa weeye wadan ajnabi bay yimaadeen oo de muxuu ahaa cunsurnimada iyo muxuu ahaa kala dambeynta iyo de kala lifaaq uu sidoo wax u helayo ninka cadaanka ah ee wadankan u dhashay iyo ninka Soomaaliga ah marka hore isku mid maaha waxa dhici karta ma garanaysaa waxyaalooyin fara badan oo de anagana dhaqan ahaan ahna inay soo gaareen wadankeeni markaan joognay wax ay jirtay labada qof markay isku caroodaan waxa dad baa loo laaban jiray hadda waxa laga yaabaa dadkii qofkii dumara inay dad fara badan u soo maqan tahay ninka ragga sidii oo kale isku adkaysi fara badanna inuuna dhicin marka ragga Soomaaliyeed waxa laga yaabaa inay shaqeeyaan and I agree with him because ragga Soomaaliyeed waxyaalo fara badan bay ku darsadaan oo ragga gaalada uga fiican yihiin waxyaalo fara badanna waa ku liitaan waxay ku fiican yihiin inaan ka hadalnaa moogti waxay ku fiican yihiin siduu sheegay ma garanaysaa inay gabadha de muxuu ahaa wixeeda haysato la sheergareeyaan wuxuu isaga keensaday guriga la bixiyaan wax walba siiyaan hadii waalidkeed maanta wax u baahdaan oo wax ka bixiyo waxyaalaha credit lagu siin kala weeye ragga Soomaalida ay uga fiican yihiin ragga kale ee adduun weynaha ku dhaqan balaakiinse waxay ku yara liitaan inaynan caruurta ka yara dayriyeen oo de shaqo ay u go'een loona baahan yahay ma garanaysaa lacag inaanad aqalka keeninaa loo baahan yahay tayadii family-ga inaad hayso anigu hadday nin Soomaali intuu shaqeeyo uu gabar wax siinayo xitaa ciil ma qabeen ninka Soomaaliyeed wuxuu shaqaystaa calooshiisa ilmana ma siiyo gabarna ma siiyo hadduu furo hadduu qabana dee gabadhii shaqo kale ma qaban karto waata guriga dhex fadhida uma ogola inuu yiraahdo 3 beri soo shaqeey ana 4 beri baan soo shaqeynaya uma ogola gabadhii inuu dadkii ku dhex daro socialkii ay la mid noqoto يعني waxa laga yaabaa inuu taraag bakoro nin taraag saaran goormo caruur hayn ma hayn karo 24 saac guriga ilmaha la fadhidaa waxa laga yaabaa bishii inuu mar yimaado ama 2 mar waxa weeye dulmigu iska badan yahay aragtay ninkana waxa leeyahay isagoo jihaad ku jira yaanu 4 bilood ka maqnaan iyagoo taraagyo saaran bay sanad maqnaanayaan marka waa iska dulmigu iska badan yahay laakiin waxaan dhihi lahaa ilaahay baan u baryaynaa waan dhalnay wayna dhaleen wayna la dhasheen زكي ما ديه كرنا اوكي لما waxa kamida dhaqaalaha ugu badan ee Mareykanka la sameeyo iyo Canada waxa laga helaa traga
gabadha ninkeedu uu taraagle yahay sida taraagleyda u xagxaganaysa runtii ilaahay kama aysan cabsanin gabdhaha kale aan raggooda aan taraaglaha ahayn food stambaha iyo section 8 ka qaata dowladda garab siiso aabba Soomaaliyeed baa laga arkaa ninka u maqan ilmihiisa bil maybe taqriiban bil iyo bar ayuu ugu badnaan u ka maqnaan karaa bisha yani waxa la yiraahdaa taraaga waxaan sanad la leeyahay 6 bilood la leeyahay 4 bilood leeyahay waxba kama jiraan taraagleyda rasmiga ah dabcan call them any truck drivers wax kambanida truck drivers ka ah waxa qofka intuu waqtigii uu ka maqan yahay gurigiisa waa in aad iyo aad limit u ah sida daraadeed aabiyaasha loogu xadgudbayo taraagleyda la leeyahay waqti badan bay maqan yihiin cadaalad ma ahan ilaahay uga cabsana tan labaad aabiyaasha Soomaaliyeed maxaa la yiraahdaa ugu dhaqaalaha badan oo gabdhahooda u dahabka u ka lusho yani gawaarida cusub ay wataan ayuutadooda ku galaan dahabka ayuutadooda maxay ku galaan ayuutadooda bay dahabka ku gateen ayuutada asaga laga qaaday marka awal faraha badan leh oo taragleyda ay gareeyaan oo reerkooda ku soo kordhiyaan in duulaan lagu noqdo rag fadhiid laga yiraahdo dumarku waxay jeclaan rag inay shaqaystaan يعني هرو سعودان وفرق درada laga tago oo maaragtay reerka la saacido laakiin haatan hadii ay soo baxayaan dumar leh taraagiyada maxad u wadaan ilmihii baad ka tagaysaan abo macaan $1 million hadaad ilmaha siiso Cabdiraxmaano wallahi waan ku dhaaf hadalkii faraha badan leh oo aad ka helaysaan ma arkaysaan Soomaalidu waxay tiraahdaa ma maaragtay islaamku uu qabaa waxyaabaha nimcada ah inaad ka shukrisaan ragga taraagleyda ah waxa ay mudan yihiin shukri gooni ah oo ilaahay idin soo diray inuu idin siiyay rag xamaasho oo muruqmaal ah oo caruurtoodii iyo reerkoodii doonaya in xalaal siiyaan ragga taraaga wada ragga taksiga wada ragga uberka wada yani imagine gabdhahan ma joogaan zakiyo ma joogaan Soomaaliya oo mafiiq inta la qaato guriga sida loo xaqiyo vacuum bay haystaan electric iyo odaygi uu kor ku aadaya islaamuhu halka ay uber marinayaan that's it guriga waa nadiif يعني انتو مارنيبا شاهي قددي اما قراعدي وديار dad ilaahay sida ugu nimceeyay weeyaan frinjeerka loo buuxiyay nimcada ay ku jiraan reer galbeedka ay joogay aqligaada diiday laakiin gabdhaha hadii Soomaaliya joogi lahaayeen oo xaaladda Soomaaliya ay kaga soo waagi Soomaaliya gabdhaha ku gumaysan jirteen oo dhigi jirteen waxaas waa laga soo tegay waayo waa indhalaayeen gabdhaha Soomaaliya waagaas adduunka la may arag wixii moodeysay in adduunka badan sida nimankan yahay waa iska masaakiin yar guriga hooyad laga soo kaxaystay oo la soo guursado la yiri hooy aniga meesha shaahayeen ii karso u timid inaad dharka ii dhaqday ahayd hadda laakiin caalam kale soo galeen ummad kale arkay carab bay arkeen cajab bay arkeen cadaan iyo madow baa la arkay war dadkan waxaa la yiri annaga maxaa ku weegay qalday dadka kale waa caadi no zaki kama hadlaya zaladii ay qaadi jireen aroortii ay saladii waa la tuuray saladii baarlamaanka hadda u soconaayo ayaa wuxuu u fududeynayaa gabdhuhu inay ku noolaadaan nolol macna ilhaan Soomaali arag ilhaan cumar gabadha baarlamaanka Mareykanka noo fadhido maxaa saladii loogu celinaysaa salada loo dhiibi jiray dhididi jiray dabka ka kicin jiray sida oo afuufi jiray ma joogaan marka waxay kaga nimcada ilaahay ku sugay guriga awga waxay hadaladii wuxuu ahaa abwaanka nin daar ku jira daruur ma arkee ileen xala roobku waa da'ay yani ileen xala roobku waa da'ay barafka iyo qabowga ragga Soomaaliyeed ay ku shaqeynayaan culayska ragga Soomaaliyeed caalamka ka haysto wallahi waxaan dhigi karaa hadda waan ku dhaaranaya ugu waqti la noolaado ragga adduunka ay noolaadaan 21st century waa waqtiga ugu fiican ragga caalamka ay noolaadaan laakiin the worst time oo rag Soomaaliyeed noolaado waa xilligan aan noolnahay oo ay gabdheen qurbaha markay u soo baxeen ay yani I can't imagine how they treat us gabdhaheeni siday noolka Soomaaliyeed caruurtii bay dayaceen nimankoodii bay dayaceen ayagii baana at the end of the day is dayacay marka I'm very sorry gabdhaha iyo abo ilmaha $1 million hadaad siiso waxa ka qiimo badan waqti wanaagsan oo aad la qaadato lacagtu waxa ma sheegto teeda kale nimanka Soomaalida siniin taraaga saarnaa waxa laga yaabaa intuu cararo inuu Soomaaliya ka soo dhisto guri yar laba qola lacagta 10 sano aad ilmihiina ku korin waqtigii aad qofkaagii dumarkaagii la qaadan ummad kale aad wax ku qaban lacagtaas xagee martaa mijin baa idinka xada laftigiina u baahan quraan inaa is saartaan
haye waxaan weydiinayaa sheekadan aad ayay u adkaatay xasaabta weeye waayo rag iyo dumarku waa toban jeer bay isku nahay maogta toban jeer ma heshiiyaan haye marka waxaan weydiinayaa su-aalihii aan soo diyaarsaday kaleba waxaad u malaysaaba inaad ciidda ku shubtaan but waa arrin marka hore loo baahan yahay I think waxaan u baahannahay falqayn fara badan caruurta iyada maaragtay waxa aan horta labada qof hadday isku muuqdaan faa'iido badan ma laha ama nin ama naag ama nin ama naag ama aan xifaalta naga dhex maro muhiimka waxa weeye qofka dumarka iyo qofka ninka ragga ah xifaaltankooda waxa ku dhex dhimanaya waa ilmihii waxa ku aaba seegaya waa ilmihii waxa xabsiyada ku gelaya waa ilmihii sidee ay labadoodaba uga tanaasuli lahaayeen sheekadan maaragtay am the boss oo ilmaha loo dhihi lahaa ilmaheena maxaa u xal labada dhinacba oo reality laga hadli lahaa Soomaaliya xitaa qaar baa aaminsan in guryo ay ku qaataan caruurta waxay ka hilmaamsan yihiin wuxuu ku leeyahay guri bay ku qaadanaysaa guriga yaa seexda caruurtiisii baa seexata iyadu waxay ka seexataa quarter sariir yar bay dhinac uga seexataa qolka kale ilmihiisii bay u camiran yihiin marka xifaaltanka inta laga tago ilmaha Soomaaliyeed ee ka hara ilmaha caalamka in loo daneeyo oo aabuhuna tanaasulo hooyaduna tanaasusho oo la war maxaan u qabsanaa caruurteena that's the situation ka maaragtay looga badbaadi karo loogana bixi karo qurbaha loogana ummadda kalena loola tartami karo okay ma isku raacsannahay dumarka Soomaaliyeed in loo baahan yahay adjustment inay sameeyaan oo ay eegaan maadaama ay muxuu ahaa labada dhinacba su'aalo adag baan weydiinayaa dadka soo qoraya also dadka commentiga soo qoraya you guys need to be also fair weerarka kaliya dhinaca ka daysaan Soomaali qiimaha ay leeyihiin you guys are just commenting maxaa la yiraahdaa ragga Soomaaliyeed noloshii ciyaalkii wixii ka dhacay all mentality gabdhaha hadda commenting I can see all of them here gabar baa isoo wacaysa balukaad aan eega ka qaba dumarka maanta we have to fight ma inaad ka qayb qaadataa rabtaa hob raggeena soo wacto okay waan ku furnay assalaamu calaykum wa calaykum asalaam wa rahmatullah magacaaga ku bilaabaya saciida caalim haye ku soco dood xun baad haysaan laakiin waxaan arkaa inaad farafiiqaysaan oo baabi'inaysaan yani qoyska macnihiisa haye qurbaan joognaa dad islaam ahaanu nahay dhaqan naga duwanaan soo galnay haye dad baan ka soo taganay labada shaqsiyo isguursaday qof kastaa dad buu leeyahay haye waa run aabaha Soomaaliyeed inuu yahay mas'uuliyad weyn badan inay saaran tahay haye laakiin caruurtii asaguna ma lahan aniguna mali hooyaduna ma laha oo wada leen anaga wada dhalnay waaran mas'uulkoodina waana la wada saaray laakiin in la yiraahdo yani dumarkii in dhulka lagu jiido ilaa xadkaas waxa asaguna ma caawinayo maxay ahayd islaamnimana maahan abtal meesha ku qoran yahay lambarka aabuhu mas'uulkii ilaahay saaro rabbaaniga ahay oo gabadhan ay maaragtay ka saarnaa iyo qoyskan ma aha wax loo arko section 8 iyo food stamp bay qaadataa iyo aqalkay fadhida ilmaha ay dhasho oo todobada oo ama 8 oo la sheegayo way wada dhaleen haye marka waxa loo baahan yahay wiilkan walaalkay ilaahay khayr ha siiye yani hooyo Soomaaliyeed dusheeda ilaa iyo Soomaaliya lagu taagnaa ninka Soomaali weligiisu ilmaha ka tagi jiray haye hooyaana korin jirtay haye community ilmaha korin jirto la korin jirto marka Soomaaliya joognay inta community ma jirto ayadii asagiya soo community laakiin lacag baan ku siiyay ilmihii waa inaad sidaa yeeshaa حرام عليك هاي جزاكم الله وما تصنتها إن نقول لك يبقى على توان هذا مدن ولا لا إن عايشة علي وحنا مالنا إن الدب نود يجيسن ضطو أنا سوقي إن الدب صباح وما تصنتها ولا لا هاي هاي ولا بس كشركتها هاي
aad bay u mahadsan tahay hadalka qaybteedii hore wuxuu lahaa miisaan buu lahaa laakiin qaybtii dambe ayay qalqal gelisay markii ragga Soomaaliyeed ciribta ku qabatay ama ay cirib u taagtay aan u sheega numberka hoos buu ku qoran yahay 2 number weeye midka doontaad soo garaaci kartaa waanad ka qayb qaadan kartaa carruurtu waxay tiri aabahana ma lahan hooyadana ma lahan hadalka way ku celisay carruurta hooyada iyo aabaha ma lahan bay tiraahday laakiin xaq darro weeyaan carruurta aabaha iska leh carruurtan aabaha ayaa iska leh lahaansha haddii la yidhaahdo noo sheeg bal siduu u leeyahay carruurtan magaciisaa ku qoran at the beginning magaciisaa ku qoran oo qofka shayga ka luma gaari hadduu kaa lumo teleefon kaa lumo yani shayga kaa lumo waxaa ku qoran magacaaga waa adduunka intuu nool yahay markuu dhinto hooyada lagu abtirayaa aakhira allahna gaarsiiye markaas annaga adduunka inaan qosalno break baa qaadanaynaa people inay sheergareyn lahayn si fiican ma aysan sheergareyn inta ku jirtay inta sheergareysay sheergareeya walaal sheergareeya si uu maaragtay dad badan u gaaro barnaamijkeena kaliya maxaad dhiig isku karinaysaa gabdho badan ku karin u sheeg gabdhaha kale u sheekarey gabdhuhu waa inay sheergareeyaan waa in maaragtay maanta maaragtay jaaniskeena aanan beerdarayn ka faa'iidaysanaa u sheergaree saaxiibada u sheergaree gruubada waa kaasa maanta jaaniska yaana laga khasaarin maanta jaaniska soona waca wiilashaa sheergareyn badan because gabdhaha ma doonayaan gabdhaha kale inay dhiig ku kariyaan marka carruurta waxaa leh sida abaayi sheegtay aakhiro dee dabcan hadal looma yaalo ma garat xisaab baa taalla weliba xisaabta culusta xisaabta dumarka sugaysa way ku culusta ragga Soomaaliyeed xisaabta sugaysa laano aanay qaadi karaynin shay aan yani mas-uuliyadda waxaa la yidhahdaa cirkaa diiday oo dhulkaa diiday oo aadanaha xambaaray islaamihii ciyaalkii mas-uuliyaddoodii oo aabbuhu uu lahaa ayay ayaga xambaarteen marka yani more questions baa sugaysa oo aan markii horeba la weydiin lahayn laano carruurtani waxaa ka mas-uula macal gabadhan waa lasoo baray horta soo mog aabaheed iyo hooyada abaaya haddaana sheegtay reerkeeda haddana waa tirahdaa malinaya abaaya reerka gabadhan aabaheed iyo hooyad baa laga soo baray adeer macaan gabadhan baan doonayaa inaan ula dhaqmo sidaad adiga ula dhaqantay nolosha gurigaada ku haysatay iyo mid ka fiican baa siinaya alxamdulilah gurigii bay timaaday guri aanay shilin ku darsanin gogol aanay waxba ku darsanin hadda galbeed kama hadlayna moogta aan waxba ku darsanin maxaa la yidhahdaa aroos aanay waxba ku darsanin in general qosol ma loo baahan insha allah raalli ahada gabdhaha haddaa qoslaysa gabadha ka yar dharka way ka reeban jirtay ma garata xilli naadaa guursaday waa lasii furanaa marka ninka wixiisii kusoo gelaysaa guriga Soomaalida waxay jirtay haddii ay la soo gasho dheri ama shay ay leedahay oo kaleeto dee la soo gasho waa laga jebiyaa Soomaalida waa laga jebiyaa oo markii hore la soo bariyay marka labaadna macal dareeska ay ku imaanayso uu ninku uu leeyahay waxa ayada ka yimaadane oo ninkan markii horeba dee gogashii uu asaga la yimaaday uu diyaarsaday wixii ilaahay yani ka ratibay oo carruur ah dabcan waxay usoo noqonayaan beerta ninkii fashay oo hawshani maaragtay mas-uuliyaddeedii lahaa ayay usoo noqonayaan markaa zaki marka carruurta cidda iskale waa nii sheegaya caawa iga qora inaad ka qayb qaadata rabtaa aw haywaa wax yar u kaaday haywa dhamayso carruurta marka cidda iskale waa idin sheegaya moogtahay marka hooyadani system noocaasay ku timaaday maadaama system noocaan ay ku timaaday oo transitionkan ay ku timaaday haddii uu kala tag yimaado hooyadu waxay ilmaha in faraqa aabaha loogu shubo soo ku leeyahay bal taas dus ii sheeg u sheegay bade waxa maanta dhasha raxay ay digi jirta adiga guriga qaleela soo gashay aabaha hooyada ninkay naagta way isguursadeen waxba isku darsadeen si isagu keligii ku yeesha ma guursan walaal aabuhu keligii intoo dariiq ma taagan ma dhali kareen daki waxyaabaha af Soomaaliga halaabay oo in la saxo u baahan baa waxay tahay
gabadha ba isguursaday war la isma guursanin la ismana furin ee gabadha waa la guursaday waana la guursadaa waana la furaa gabadhu waxa ma furaan waxna ma guursadaan marka la isma guursan walaalo maadaama aan la isguursano lagu soo guursaday contractgiinu uu dhamaaday oo xilligan uu ku egyahay 2020 bisha 12aad كور باول فريا بحلي قالوا كتير marka waqtiga maadaama uu dhamaaday wixii meesha ka soo baxay waa inaad tirisaa xilkii aad haysay waa inaad tirisaa daameysaan ku tirinaya fiiri aniga ayaa marka labada qof wax sheer gareeyaan okay adiga ku yeesho ayaa muhiim qofka soo daa marka ciidan iska leh waa aabaha ku soco walaal Australiana laga soo wacaya هاي أبو Soomaaliyeed waxaan dhahay xaqiiqa aan dhahay xaqiiqa inuu kuleeyahay ma garto markuu ka hadlo inuu dhaho lacag baad qaadataan carruurta lacag lagu ma qaato marka runta laga hadlo carruurta waxaa la tayo waxay cunaan waa loo xisaabo horta gaaladu u xisaabiyin waxa ay siiyaan Abu Soomaaliyeed hadduu soo istaago uu dhaho lacag baad haysataan dumar oo lacag baad haysataan lacagihiina carruurtiisa buu ku baxaa lacagtiisana markuu aawsho Afrika la cararo taadan markuu ka qaato halaha yar oo ayuu taqaadatay oo aad la carruur ku dhaw wax baan ku soo qabanayo soo guursado xaqqa carruurtiisaan dhahay xuquuqda carruurtiisa uu daayacay markuu joogo buu daayacay markuu baxan uu daayacay wuxuu ka hadli doonaa markuu imaado inuu dhaho waa carruurteedi asagoo nool baa carruurtiisa daayacay waxaan Abu Soomaaliyeed horta in badan aan dhahay in badan xagga xuquuqa carruurtooda leeyihiin aad baa u yaryihiin in badan carruurtooda way daayacaan shilinka habarta la siiyo ay fiiriyaan oo ay leeyihiin wax baa qabtaa asalkiisa ma arkaayo xoolahaagu adi yaroo carruurtiisa cunayaan oo guriga hoostana haddaa la fiiriyo wax dadka siinaya male shilinkiisa baa lagaa maxaad oran kartaa aabaha Soomaaliga uu ku fiican yahay kala maxaad siinaysaa kala maxaad markuu danku leeyahay uu ku fiican yahay sidiisaba haye dantiisana markuu kaa gaaro oo wuxuu shilinkaaga kaa jeedkiisa kuma yaqaano adiga kuma yaqaano carruurtiisana ma yaqaano aabaha Soomaaliyeed waxaan dhahay wuxuu ku fiican yahay markuu aan dhahay oo carruurtiisa ay xanuunsan yihiin oo ula cararaayo leeyahay oo maanta kan rabbi baa carruurta soo degaysa dawladda habar kaligeeda socoto isaalka taagan iskuulka taagan oo loo jeedo dayacsan yahay oo maanta hadda runta baa taagan markaasuu soo muujin leeyahay oo shaqada ku maqanahay habartii oonaysa leedahay oo ninkii shaqo buu ku maqan yahay waxna kama aqaano waxaan Abu Soomaaliyeed xaq carruurtiisa waa inay ogaadaan inuu soo istaago ku leeyahay oo carruur baa xaq ku leeyahay xaqooda ma yaqaaniin haye waayahay dumarkana maxay iska sixi karaan waxaad u malaysaa hal dhinac inaan xitaa u wadno sheekada dumarka maxal wax miyaa loo baahan yahay iyaguna inay iska saxaan in carruurta u tuuraan bay ku naqo waxay ku tiri gabadha ku jirta inay carruurta u tuuraan markana waxaan ayagana waxa uu talinayaayo dumarkana waxaan dhahay waxaan u saxayaayo waa inay iska sabraan oo iska dulqaataan oo Abu Soomaaliyeed hadduu sidaas u galo waa inay iska sabraan oo inay isla qabtaan aan wax faa'iido badan mal ka kow aniga ka mid ah hortaarintaas ugu dhacay ilaa hadda uu ku dhex jiraa waa mahadsantahay walaalo waa mahadsantahay waqtigaaga nala qaatay hayaa bye macaan maxaad ka oran lahayd gabadha waliba baad way Australian ee kala soo hadlaysay ka hadashay xaqiiqadana lama dabooli karo warka xaqiiqada war run oo sax ah iyo wax oo malaawaal isku meel ma tagayaan gabadha xaqiiqada ka hadashay familiyada hooyo ilaahay baa saddex mar xaq siiyay reasonku u siiyay Allah subhanahu wa ta'ala waa jirta
حتى رسول كان سبحانه عليه الصلاة والسلام وحير قبل هذه الناس المه أدي واتكئ بسنيسة سقال بلود بعروش قوتي المه وي والله عاد حنون بي لمرت الناس بهبين كيورم سوا كعيساسين يسا يعني قبل عاني إذا واتك قدام يسابالي دين تسلم كاتي لراعة ماشي أنا أعتقد تسكرافة أنت قاعد وكسي سوى لي ما ينسي marka waa iska ayaan daro zakiyo waxaa loo baahan yahay in la ogaado weliba dadka culummada inay dumarka ay u kala saaraan xadiiska rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu tilmaamayo oo ninka saxaabiga intuu yimaado ku leeyahay rasuul allah dadkii ay ugu xaq badan salawatullahi wasalaamu calayhi wuxuu leeyahay hooyada ثم أمك هدنا هويدا then ثم أبوك لكن هلك الله قاضي ويخلدنتها إن لو ناجيو حديث كان ماشو يحيل دغو أيا وناكسن أن لو دغنو كليا نين يراجس قبو أيا waxay leedahay hooyada ilaahay xaq badan buu siiyay for example mawduucan baanu ka hadlaynaa hooyada ilaahay xaq badan buu siiyay waxaad bamoodaaba xaqa aabihi uu lahaa iyo xaqa caruurta ay lahaayeen iyo xaqa gabadhan ay leedahay oo xaas ah in la isku qaldayo for example anigu xaaskaygu hooyo ma ahan hooyadayna xaas ma ahan in sida loo ogaado hooyaday waa hooyaday xaaskayguna waa xaaskayga ilmaheeda ayay ayada hooyo u noqonaysaa kuwaas ba weynaadaan oo 15 kor u dhaafaan oo aabo fiican uu koriyo oo nolol wanaagsan uu ku koro kadib bay xaq yeelanaysaa laakiin xaqan ayada ma yeelanayso ilaa ay odaygan ilmahan intuu koriyo xaqii hooyadood iyo aabahood markaa uu guto ma yeelanayso waan ku sheegayaa arrintu nin iyo naag baa laga hadlayaa laga hadli maayo hooyo iyo xuquuqdeeda ay leedahay haddii aad hooyo ka hadasho zakiyo waa inaad haddana aabba ka hadashaa so marka ilmaha aniga aan dhalay hooyo uma ihi adiga xaas baa tahay hooyo uma ihi ma ka hadlayo xaas aniga cunugaan dhalay maxaanu ahay cunugaas baa aniga kuma lihid hooyaanu ahay dee maanta yurub baana soo wacaysaba laakiin hooyanimadu macnaheedu ma ahan cunug aan qaangaarin oo naaska ku jira ayaan xaq ku leeyahay yes xaq baa ku leeyahay cunugaad haddii aad xaq ku leedahay xaqaada intuu kaa siinayo ha lagu koriye faraha ka qaada aabihiis ku daaya aabbayaasha loo daayo si aa xuquuqda ciyaalkan ku leedihiin ay uga soo baxaan laakiin ciyaala laabta gashateen oo aad tirahdeen aabbayaashii baa furay dan idinka aad guursateen sharciga ma garan kara ilaa ciyaalka aabbaha ciyaalkan ay tahay mas-uuliyaddooda inuu qaado idinkaa ku dhegay idinkaana ciyaalkii korinaya deetana waxaad usii gudbiseen xabsi iyo drag staff iyo ajnabi iyo yani carruurta wallahi ciyaalka soomaalida they suffering lack of father aabba la'aan bay ka cabanayaan hooyo la'aan ciyaal ka cabanayo oo dhahayo wallahi oh my goodness I had no mom in my life ma jirto hooya ka tegayso waryaanyuurta haddaa aragta fiiraya aabbaha ma ahan dadka horta aabbuhu sidiisa buu ka qalbi adag yahay hooyada haddaad u fiirsato xayawaanka libaax uu kala goynayaa ilmihiisa hadday usoo dhawaadaan oo xanaaqa shimbirta hooyadaa wax usoo guraysa yaanyuurta hooyadaa haysata ariga hooyadaa haysta hooyada waa qaali ilaahay baa naxariis siiyey that reasonka ilaahay subxaana watacaala uu rasuulkeena u yiri calayhi salaatu wasalaam hooyaa xaq badan waayo beerkeedii waayo caloosheedu wax kale idin karaameeyey xoolaha haddii ay xooluhu ay dhashooda ee hooyo ay hogaamiso nimanka soomaaliyeed anigu waxaan er waa iska orgiga ilmuhu dhalay ilmaha kale ma kala yaqaan magacaasa raba inaa ugu exampleka maaragtay oo ah maxaa la yidhahdaa ilmaha xooluhuba ilmaha hooyadood bay daba socdaan hadda idinka xoolo ma ahidiin waxaad tihiin dad ilaahay karaameeye yani waxaan ka wadaa hooyanimada hooyanimo kama walaalo hadda waxaa laga soo qaadanaya example oo ilmuhu xooluhuba ilmahooda hooyadood bay la joogaan kuwa caqligana hooyadood hala joogaan may ilmaha nadiifka ah ee adduunka horuu maray waa ilmaha aabbaha leh ilmo bilaa aabba ah adduunna kuma hormaro caddaan iyo gaal iyo madowna wallaahi way ka qayliyeen
caalamku waxa uu la gilgilinayaa oo la garguurinayaa oo la kicila yahay waa ilmo hooyo koris ah waxaan weydiinayaa malahan abti malahan nolosha dhan waxa weeyaan waa baati iyo dirac iyo maxaa la dhihi jiray iyo is-uumin iyo maaragtay intaa sideed caruura noo dhiibteen baa rabtaa inaan diracna xiran aqligiisa fiiri intaan dirac xiran aan baartina tegaynaa barkee haddii kale madaxay ka jiranaysaa hooyada waa inay isi soo baadhigaraysaa oo soo nafistaa saaxiibo u tagtaa 8 caruura looga cararay oo waxba lagu siinayn markii guri u dhex fadhiisata cajiin u lahaato yaa waale maya aqli leynaa soomaaliyeed ii raaxaysta ii raaxaysta maalinba dirac cusub maalinba waxaan ku eri makeup intaasayba quruxdooda dambata in vacation maba aadi karta waa reer guuraayo 2 qof hada vacationkii ka baloogareey waa ogtahay in 2 qof vacation la aadi kartaa ama 10 people xagee ku degaysaa 6 qof ba hotel ijaari kartaa marka waxa waaye the only thing ay sameyn karaan waa inay soo qabo money positive gabadhaas soo wac lambarka money meesha lambarada ku yaal hoos shaashada hoosteeda kasoo wactan marka waxaan dhihi lahaa dumarka Soomaaliyeed waxa kaliya qabsan karaan waa inay aroos aadaan vacation bayna aadi karin dalxiis ma aadi karto sidoo isku mid cid kale ma booqan karto oo reer 10 caruura guuraya aqbalaayo ma leh lugahay gacmaha laga xiro ma aadi karto ani cayr dalbataa wax yar ay soo xara ayuu ku gashaa dirceedana xirataa barkee lifekeeda sidaas soo ninka Soomaali intuu taraag u koray oo lacagtiisa calooshiisa ugu buuxsanay Ezekiel mid kale oo ayadana baraarujin mudan waxay yiraahdaan ayuutay gashaabay yiraahdaan hooyo 7 qaada oo 8 haysata oo 7 haysata oo 5 haysata oo illiterate ah waxna qorin waxna akhrin hormari abaayo qoxooti ku soo gashay Ezekiel way maqlaysaa Soomaa gabar fiiri sida hadal ku dhigayo qoxooti ah tahriib ku soo gashay shalay la soo qaaday aqoonteeda high school aan dhamayn yani dhaqaalaha halkee bay ka keentay la leeyahay ayuutay ku gashaa waxaan saad ola yaabaa nimanka Soomaaliyeed baa gabdhihii Soomaaliyeed xooloodii wadamayaga wax bartay waxa tagaastay tiraag u saaran yihiin waa low education way ka xoog badan yihiin wax bartay xafiis buu tagi lahaay wax dhagax jibiyo taraagyada wado wadooyinka tiraag waxa saaran iyo waxa taksiyada wada waa low education meel laga aqbalayaan jirin inuu halkaas fadhiyo mooyaane I agree aqoontu waa ka wada simanaa aqoon darradu waa ka wada simanaa laakiin waxa loo baahan yahay waxa loo WhatsApp waa ilhaan